zamankii fitnada. rasuulka alloo mana la halaaga rasuulka alloo mana la halaaga ha waa laydin halaaga idaa kahura alkhabathu haddii khabadka uu bato ha waa laydin halaaga macaasidu hadday badato ha waa laydin halaaga fajirnimada hadday badato ha waa laydin halaaga fisqiga iyo cisyaanka hadduu bato ilaahay waa idin halaaga ha waa laydin halaaga ilaahay waa idin halaaga waa idin halaaga maxaa alla soo dejiyey caawa oo khazaa'in ah maxaa la soo dejiyey oo fitan ah buu dhahay nebiga wanaadaa unzila oo min alfitani fitanta markaa ka mid ah man yuuqid yaa ii kicinaya sabaaxiba alxujuraati xujuraadka qowladaha sawaaxibtooda wuxuu ula jeedaa rasuulka waa ummahaatulmu'miniin say rabbigood u caabudaan say salaad u istaagaan say alla u xusaan ilaan fitan ayaa timid loogama badbaadi kara ilaa diin alla maahane ma looga fakan kara ilaa in xaqa la raaca maahane in ilaahay la caabudo maahane in diinta lagu dadaala maahane rasuulku aad iyo aad ayuu maalintaa u soo argagaxay goormay dhacaysa wakhtiga dadka la masakhayo oo ilaahay dadka uu doorinaayo ama la bedelaayo dhagxaanta lagu soo qubaayo dhulka lala goynaayo dhul gariirka uu badanaayo wakhtigee waay rasuulkii ilaahayow nebigu wuxuu yidhi idaa dahara qaynaatu haddii qaynaadka ay soo daahiraan qaynaadka waxaa loola jeedaa waa muqaniyaad waa fanaaniintii gabdhaha heesa mar allaala markay soo daahirto oo ay bannaanku timaado iyo walmacaasifu maanta shahaadooyin ayaa lagu bixiyaa heesaha waxay noqdeen dad dadka laga sooco oo laga qadariyo oo laga qiimeeyo xaaladda sidaayay ahaanin war dadka waxa lagu qadariyo diinta alla ha ahaato umadaydu haddii ay samayso 15 waxyaabo waxaa ku soo degaya dushooda balaha waxaa loo yidhi wamaa hunna yaa rasuula allah rajulka haddii sawjadiisa uu ateeco oo hooyadii uu ku caasiyo maca daalika sadiiqiisa iyo saaxiibkiisuu u baari falo aabbihii uu gooyo واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب fidnada imtixaanka goormay dhacaysa wakhtiga dadka la masakhayo oo ilaahay dadka uu doorinaayo ama la bedelaayo dhagxaanta lagu soo qubaayo dhulka lala goynaayo rajulka haddii sawjadiisa uu ateeco oo hooyadii uu ku caasiyo maca daalika sadiiqiisa iyo saaxiibkiisuu u baari falo aabbihii uu gooyo